بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aan ka xumahay inaan waqtigii aan idinla ballamay dib uga soo dhacay. qadar allah wama shaa facal. waxaan sugaynaa insha allah in ay soo xaroodaan dadku insha allah ay isu yimaadaan si aynu u bilowno hadalka. imika waxaa soo galay 225 masha allah ugu socdaa 240 marka insha allah tira xogaa ayaynu muxuu insha allah ku bilaabaynaa. ina sheega insha allah muuqaalku inuu iyo codku inuu wacan yahay. codka iyo muuqaalku inuu wacan yahay halkaa igu soo qora waan arkaa. واضح المغلية إنه ياي إن شاء الله حنسوينا هنا يددكو سودا ميسترمان وإنه بلونا لحظات إن شاء الله هذا يعني كورانا إنه إن شاء الله بلابنا واحد سميسان إن شاء الله انتهينا بلابين قف كستابا المقال كوريا لا إنه شهر سمايو وقل يسعديو سياي ضد بدن إنه هاي u ogaadaan una arkaan. qof kastaba isku daya muxuu ahay si sheer gareeyo ama la wadaago asxaabtiisa. anigu halkan waxaan isku dayayaa inta imanayaan dadku inaan muxuu ahay dadka soo gelaya weli maan bilaabin insha allah waxa weeye waan bilaabaya. dadka soo gelaya iminka dhow baan bilaabaya insha allah. waanaad ku mahadsan tihiin in aad timaadaan aad addoonkan miskiinka addoonkan ilaahay miskiinka u timaadaan. si aad ula wadaagtaan waxa uu halkan ka sheegi doono insha allah. soo fadhiistay 408 iyo 429 insha allah. masha allah dadka soo fadhiistay waanay ku sii soconaysaa insha allah biidni illaahi kariim. dhigi lahayba gobolkaygu ka dhimeeyaa bayskayga ma dhigi lahay laakiin si baan sameynaya. طبعا weli maan bilaabin mawduucay markaynu bilaabayna insha allah. sidaa waxaan u sameynayaa say dadku u diyaargaroogaan 609 ay mar qura inoo dhegaystaan. ilaa 600 waad ku joogtaan. إن شاء الله وحبيب بلابنا إن شاء الله بإذن الله كده. وأنا قاعد كنت وقتان إن شاء الله وحبيب. سوف نبدأ بعد قليل إن شاء الله. علدون ورب العلدون بشر قراني بيج كيو ككلا أصل كوا هذا كلا تقاني لوداس من نوع بيج وبوجي من ضمن بروفيل بتاع مسمع كلام بس فيسبوك وهو رياض سميستيد
كان محو نقطة كلا بيج باو نقطة هو بوك هذيك الشيء هذيك هي قدر عليه يمكن جيبا في الأيام عطك جميل المغلب يعني أنا بيروح ولا مغلب الغرب هذا اللي يقبص اللي يسوي وديك الوعين قبل كي جاي فوق بدنا بين كشار كراهية طبعا dadka waxaan ogeysiinaynaa waa barnaamij toos ah oo anigoo ah Cabdimalik Sheekh Muuse Caldoon aan iminka ka hadlayo qodobo badan oo aan muujinayo aragtidayda iyo halka aan ka taaganahay marka taasaan maxay aan dadka la socodsiinayna insha Allah dadka aan maxay la socon ayaan la socodsiinaya waxaan intaas ii qabanaya waxaan kan ka wada ماشي كان لي بروفيلكي واي waxaa ku jira 706 waana badanayaan واي وبرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستو aad joogtaan subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan salaanta islaamka aan idinku salaamay ka hor ee ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبت قليو iyo naxariisi korkiina ha haato waxa ka wacan qofku inuu nabad iyo badbaado uu helo oo ka badbaado cadaabta Allah inuu ka badbaado iyo dhibaato iyo masaa'ib iyo xanuuno yani badbaado inuu wada baahanay taas waa taas alxamdulillah yani ilaahay baan u mahadnaqayaa inaga dhigay muslimiin oo insaanka Soomaaliga ahi sida lagu ogyahay midmid mooyaane mid muxuu ahaa yiraahdo diintan ka baxay oo xaalad yar mooyaane laga waxaynu nahay muslimiin ayaynu nahay marka sidaas awgeed xukunka muslimiinta ayay muxuu ahaa aan ku wada jirnaa marka taasaan ilaahay ugu mahadnaqayaa nicmada ugu weyn waxa weeye waa nicmada islaam waxaan xasuusinayaa naftayda iyo idinkaba cabsida ilaahay baan xasuusinayaa taqwada ilaahay oo ah in amarka Allah la qaato wuxuu ilaahay naga reebana muxuu ahaa ka reebanaano taasaan idin xasuusinayaa waxa kale idin xasuusinayaa aniga iyo naftaydaba intaynu adduunyada joognaa inay kooban tahay ay nolosha dhabta ay tahay nolosha aakhiro daar alxayawaan daar alxaqiiqiya nolosha dhabta ay waa daar alaakhira alxayaa alxaqiiqiya ta aan abadiga la waarayaan ay taa tahay bani aadamkuna waxa weeye daa'iman intuu soo jiray iyo inta uu imika jiro iyo inta inaga dambaysa jiri doona دائما هو مثير للجدل جدل وهو دود بدن أيو فرا دود بدن أيو دليا دتكو خسر معها هنا يسكمل يسرع عن حتى يوم مسلمين إن مال يسرع عن حتى خسر معها وين عدا ويس خلافات صحابة دي إن جوه الرئيسي أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم أي إسخلافي هروسي شيء النبي صلى الله عليه وسلم إن عمار بن ياسر أيام في الأيام وها ويري النبي صلى الله عليه وسلم كواحدة حد جود بيسا كوا كله كوا حد جود بين ترى المسلمين ولا بقى يبغوا قيب سما كواحدة منها هاي حد جود بيسا أي دي ليس المركب محوية مسلمين تك كده عادي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني جريد يسيقوا يني مركب مسائل كخلاف جاهي يعني هو وشيء إسكا أصبح شيء طبيعي شيء عادي تاس وهو وتاس
asxaabta badan waxaan uga mahadcelinayaa halkan igu timi sharaftay inaan halkan inay ila wadaagto oo ay waqtigooda ay siiyaan oo dhegeystaan runtii waxa weeye waan u mahadcelinayaa waana qiimo weyn bay igu fadhiyaan inta bogayga igala socota daawata waxaan soo geliya aragta ka hadasha aragtidooda say doontaa noqotay iyagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxa weeye muuqbaahiye runtii muxuu ahaay ayuu aniga ii yahay aan ku gudbinaya muxuu ahaay waxa aan u arko inay ila quman yihiin waayahay waxaan hordhac yani ka cudur daaranayaa inaan bani aadam ahay bani aadamka maadaamaan ahayna waxa weeye waxaan ka hadlayaa maadaama aan sharciga islaamka waxay aan sharciga islaamka ka sokeeya oo aragtidayda aan ahayn qur'aan iyo aan ahayn xadiid oo aan sida aan wax u arko ee kale yani muxuu ahaye waxa weeye waan ku gafi karaa waan khaldami karaa waanan saxsanaan karaa anigoo saxsanna waxaa laga yaabaa in muxuu ahaye ay dad badan igaga soo horjeestaan taasina dhib mala anigoo gafsanaya waxaa laga yaabaa inay dad badani igaga soo horjeestaan oo waxaweye waaba gaftaas waxaaba dhici karta inay igu raaci karaan gafkaas taasna waa taas waxa weeye waxyaabaha aan iminka arkaya markii aan soo iclaamiyey aan idhi muxuu ahaye barnaamij toos ayaan gelayaa waxa weeye dad badan su-aalahoodii waxaan ku uri su-aala halkan waa lagaga tegi karaa markaa su-aalo badan bay muxuu ahaye dadku ay soo qorayeen su-aalahaasi waxay ku saabsanaayeen arrimaha yani arrimo siyaasi ay ku saabsanaayeen oo muxuu ahaye arrimaha soomaaliya somaliland midnimo kala go shacaarif maxaad ka aaminsan tahay taas ayay u badnaayeen ka hor muxuu ahaye intaana muxuu ahaye u gudagelin mawduucyadaas waxaan u sheegayaa dadka halkan igala socda insha allah in videogan liveka ama tooska laba qaybood u kala qaybinaya qaybta iminka aan bilaabay iminka hadda socotay 12 daqiiqo waxaan ka dhigayaa mid aan anigu kusoo gudbinayo arrimaha sida aan wax u arko iyo meelaha aan arrimaha qaar ka taaganaya arrimo badan yani ma koobi karo laakiin in ka mid ah ayaan muxuu ahay soo ururinaya insha allah sababta waxaan ka dhigayaa maalmo kale iyo marar kale ayaan muxuu ahay marba arrimo soo qaadanaya sababtoo ah yani waxa weye waxyaaba badan oo aan doonayo inaan ka hadla jira oo aan ku koobnay inta caawan ka hadla videoga labaad muuqaalka labaad wuxuu noqonay kan aan ahayn in su-aalihii hore aad usoo qorteen meeshii aan ku ogeysiinayay in aan toos geli doono iyo su-aalaha halkan muxuu ahaa lagu qori doono insha allah inaan iyagana barnaamij mustaqiil ah oo toos mustaqiil ah madax bannaan oo gaar oo ka duwanka inaan isagana muxuu ahaa kaga jawaabi doono oo sababta waqtiga ayaa muxuu ahaa isku badanaya haddii aan mar walba muxuu ahaa wada bilaabo waxaan ku horeynayaa muxuu ahaa kii waxyaabaha barnaamijka muxuu ahaa aan u qabtay waxaan ku horeynayaa taariikhda muxuu ahaa soomaalida طبعا waxa weeye waxaa jirta taariikh aanan ahayn mid aan anigu aan alifayo iyo taariikh soo jireen ayaa jirta soomaalida waxay ahaayeen deegaankan ay degan yihiin ayay deganaan jireen qadiiman oo waxa weeye inkasta oo yani kutub taariikh iyo tawthiiqinaysa soomaaliga iyo halku ka yimi ay muran badani ka taagan yahay oo aanay muxuu ahaye waxyaaba badan oo qornayn soomaalida saynu ognahay waxa weeye hadal baynu u badannahay taariikhdaynu sugaanta ayay ku jirta waxa ay yani sugaantuna dadkii sugaanyahankana waxa weye dad yani soo dhowaa ayuu ahaa markaa soomaaliga insaanka soomaaliga ahay marka dhinac laga eego dad dhow baynu ahayn dad aada u fog maynu ahayn marka waxa weeye ummadda aan nidaamka lahayn ee aan dowladda lahayn ayaynu ahayn iska xoolo dhaqatada ah soomaal dadkii la odhan jiray oo yani inkastoo magacaas yani lafteed aan isku khilaafsan yahay soomaal yani waxa weeye loo bixiyey soomaal caanaha soomaal oo kale ayaa mararka qaar ay yidhahdaan dadku marka deegaamada aynu degannahay iminka aynu wada ognahay meelaha aynu degannahay qaarna ay madax bannaan yihiin qaarna ay la haysto ayaynu muxuu ahaye ayaynu deganay inagoo qaabkaa u degan ayaa waxaa yimi gumaystayaal kala duwan gumaystayaashaas ayaa kala qaybsaday
markii ay kala qaybsadeen magacyo ayay ula kala baxeen markii ay ka dhamaysteen ama ay gumaysigu xilligiisii kasoo dhammaaday caalamka kasoo dhammaaday mid kastaaba wuxuu siiyey intii uu gacanta ku hayay madax banaani ayuu siiyey taariikhda waad ka dheregsan tihiin oo waxa weeye mid aan anigu idinka sheekeynayo maaha oo soomaalidan iminka la yidhaahdo 5 baa loo qaybiyey hore 5 baa loogu qaybiyey labada la haysto Kenya haysato anigu waxaan u aqaanaa طبعا أراضي محتلة أنا وقنا طبعا هدي أذوق تقنيد وحكله وأنا وقنا أراضي محتلة سيدا فلسطين لويل هذا لوكا إسرائيل كهيستو إلى تل أبيب لفتة ماشى عاصمتها كوشاكتان يقدس نوابي كوشاكتان أراضي محتلة لويل هذا ولوكا الله هيستو أيوة إحنا نقول وقنا لوكا كينيا نجا هيستو أراضي محتلة لول صوماليا الله هيستو لوكا إثيوبيا نجا هيستو أراضي محتلة لول هيستو إكسر صومالي لودي بلاك والله هيستا وماملك وحوي مامل محوها ورا بتاعه والصومال لودي لكن يعني وحوي قعدت وحكوا هيسا دولة عن صومالها مامل هو سوتشرا صومالو كتلسا وينو أرجنا مقالك لكن وحوي أراد مثل وهي شن تاسع لو قبي لبضع دلايك الهيستان جيبوتي أو دورة فضوات إنكي يدنا محوها فرنسيس هيستي قيبت هذا أو يدنا محوها فرنسيس كي محوها مذهب بناني سيء وحصوهري labadii qaybood talyaaniga iyo ingiriisku haystay ingiriiska qaybta Somaliland meesha muxuu ahaay la yiraahdo hadda qaybta koonfurna waxa weeye koonfurta iyo waqooyiga oo ku midoobay 1960kii bishii 6aad 26keedii ayay midoobeen aan ayaraha lahada 1960kii bishii 7keedii ayay midoobeen marka shanta Soomaaliyeed ayaa jiray laba kamida ayaa midoobay marka dadku waxay haayeen dad marka meel wada degan oo xoolo dhaqata oo Soomaaliya oo af Soomaali ku wada hadla oo deegaankaasi ka dhaxeeyo oo diini ka dhaxayso arrimo badan ka dhaxeeyaan marka isticmaariintii almuhtal baa yimi oo kala qaybsaday xaqada jirta waa taas waxa Soomaalidu mid bay ahayd saasun baa loo kala qaybiyay markii laga tagayna waxyaabaha runtii caalamka islaami gumaysigu وكجت جاي بكمتها إنه ضد ويماضى أو إلى هذا حويه وماشان ونعمره يا أو ونهرمرنا يا أو حويه أساسا كده جاية كدبنا وفتنة حدود أسي كلا سماية حدود مركز تبع يعني اللي بكت حاجتها وصوري يسوي سي صوري يعني ماها الصومال ده كده يعني دلال بدون الإسلام كم ده حدودها سألوك السبي حدودها سألوك السبي تضمن هاي سكوتشري هاي dal meel wada degay haayeen magaalo baa la kala deganaan jiray si deegaamadaas baa la kala deganaan jiray laakiin dawladda iyagu aan jiray ayba marka xuduudo waxa loo sameeyay halisa oo suna oo weligeed muran xumaa kala taagnayn markaas la sii kala qaybiyay si ay colaadu muslimiintu ay markastaba u sii jirto yani waxa weeye waa mu'amaraat yani cadawga xumaa muslimiinta oo dhan maaha Soomaalida oo dhan uu kaga tagay laba xumaa runtii talawacan la yimi markaas 1960kii bishii 7 kowdeedii waa ku midoobay meeshii ingiriisku haystay Somaliland iminka Somaliland dib u goosatay iyo meesha kale Talyaaniga haystay waa ku midoobay dulmi kadib iyo dil kadib iyo dhibaato dawlad Afgaan bay ku timi Maxamed Siyaad Barre hogaaminaya oo runtii wax badan qabatay aan oran karno horumar iyo dhibaato badan dadka u geysatay oo Soomaali Maxamed oo dhan u geysatay aan ahayn dadka reer Somaliland kaliya hala kala bato ayaa dulmiga kadib iyo cunsuriyadaas iyo layntaas ayaa waxa dhacay inay burburto dawladii xooganayd dictatorka ahayd dhinaca ka ahayd istibdaadiga ka ahayd daalimada ahayd Soomaali badan runtii waxa weeye si arxan darra u dishay sidoo kale dawladdaas waxay ku tallaabsatay dawladdaas timi 1969kii waxay ku tallaabsatay waxyaabo ka dhana diinta islaamka shariicada islaamka waxay xariftay
oo ay bedeleen quraanka kariimka khudbadiisii caanka ahayd waynu haynaa maxamed siyaad barre oo leeyahay ma jiro rubuc iyo thuluth iyo waxaas ma jiraan ragga iyo dumarku xagga dhaxalka way siman yihiin xuquuq oo dhan way ka siman yihiin ka tuuq yiraadana waxa way wala dilayaa waana tii la laayay culimada lagu laayay barxadda ay Soomaali badani buuxday waa meelaha Soomaali runtii laga raacay inkaarta Soomaali laga raacay culimadii la laayay la baabiyay aynu ogeyn muxuu ahaa sida loo galay lagu dilay calaashaan inay yiraahdaan waxa weeye siyaad barra saxa iyo dawladana saxa laakiin dadkaasi culimadaasi waxay go'aansadeen inay yiraahdaan sadaqa Allahu al-azim ilaahay baa run sheegay wakadaba maxamed siyaad barre nabeen buu sheegay marka ilaahayna wuxuu yiri tilka alqura ahlaknahum lamma zalam deegaamada iyo tulooyinka waxa loo halaagay markii ay dulmi markaas Soomaali markaasay bilowday dulmigii ay isu geysanaysa dhexdeeda waxaan aaminsanahay anigu aan islaada waxa weeye Soomaali dhibaatada haysata waxa weeye halkaas laga raacay culimada la laayay iyo dadka la leenayay ee la aamusay badna cabsida ku jiray badna raadada ka ahaa dulmiga la geysanayay ee aan laga hadal ay isu geysteen lagu halaagay oo ilaa ay imka muxuu ahaa dhibaatadeedu ay taagan tahay aayaadka quraanka waxa ku cad inuu ilaahay ummadaha halaago marka inuu ilaahay ummadaha halaago markay la yimaadaan dulmi وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا deegaamada iyo tuulooyinkaas waxa la halaagay markii ay dulmiga muxuu ahaa la yimaadeen وياي خدك ayaa iga go'ay waan soo laabtay mar labaad khadka ayaa go'ay insha Allah mar dhow waxa weey caadi ah khadka iga go'ay iga raali hada waxa weey waan soo laabtay marka waxaan waday halaaga ummada Ilaahay wuxuu halaaga markay dulmi siimaadaan xaqiiq waynaynu qiranaa inuu dulmi dhexdeena dhacay markaynu qirano Ilaahay u toobad keeno ayuu Ilaahay naga kor qaaday laakiin intaynu dafirayno waaynu leenahay maya waxba ma dhicin marka waxa weeye dhibaato dawladdaasi ay soo gaarsiisay Soomaali badan ayaa muxuu ahaa halaagi uu ku dhacay marka waxyaabihii sababay inay samaysmaan jabhadaha kala duwan yani SNM kow ka ahayn ay ka horeeyeen jabhada kale waxay ka dhanahaayeen dawladdaas dictatorka istibdaadiga dhaalimada samaysay dilka iyo cabsinta iyo irhaab dawla argagixisada dawladeed ayay noqdeen ayay ka hortageen marka waxa dhashay inay jabhadahaasi kacaan oo meelo badan ka kacaan oo dad kala duwan ay sameeyaan isla markaana la rido muddo kadib halgan hubaysan kadib 1991 inay dhacdo dawladdii dhexe Soomaaliya ay burburto oo isla 1991 bishii 8 ay Somaliland qaybtii waqooyi Ingiriisku hore u haysan jiray inay ay tiraado waxa weeye ku dhawaaqdo waxa weeye madax banaani oo ay ka goodo oo iyagoo sababahooda sheegaya oo
dhibaatadooda sheeganaya oo waxyaabaha ay kaga cabanayaan muxuu ahay sheeganaya dowladdaas waayahay marka waxay aynu taagannahay iminka somaliland oo dhinaca oo go'day iyo qaybtii koonfurta ee talyaaniga oo iminka magacii soomaaliya xambaarsan oo iminka aanay ka jirin dowlad xoog badan dowlad qawi aanay ka jirin oo yani tadakhul uu jiro muxuu ahay tadakhul gumaysi uu jiro oo dowladaha jaarka iyo dowlado kale uu jiro oo iyada loogu talagalay soomaaliya oo dhan loogu talagalay in la kala qaybqaybiyo oo loo sameeyey nidaam federaaliya oo nidaamkaasoo lagu bilaabay ciraaq 2003 watii lasoo weeraray ciraaq maraykanku soo weeraray marka waxa weeye wuxuu dhex dhigay dowladdii ciraaq ee saddam xuseen isku hayay sunnigooda iyo shiicigooda iyo kurdigooda iyo carabkooda uu isku wada hayay waxaa loogu talagalay dowladda islaamka ee xooga badan ee laga baqayey in la baabiyo la dabar tiro marka waxaa loo sameeyey nidaam la yidhaahdo federaali nidaam federaali marka nidaamka federaaliga ah ayaa muxuu ahay soomaalidana loo sameeyey meeshii magaca la soo hadhay ee soomaaliya nidaam federaali nidaamka federaaliga ah ويعني شو اسمه مربر على هذا لا سocda khadka telefoon khadka facebook iyo internetka ayaa marmarka qaarkood go'aya marka idinku khadka ku jira waan soo noqdana mar labaad way isagoo dhameystirana barnaamijka laaxiqan waa daawan doontaan marka waxa loo sameeyay nidaam runtii lagu kala jarjarayo federaal qaadashadu waa masaayib loogu talagalay in muxuu ahay Soomaalida inta hadhay lagu jarjaro waa xaqiiq jirta marka federaal aan ka amar qaadanay federaal laftooda maamul goboleedyo aan dowladda dhexe ka amar qaadanay baa soo baxay maamul goboleedyadaas ayaa si kala go'ay waxa weeye maalin kasta waxaan maqlaynaa maamul goboleed si kala jabaya oo qolo kale ku dhawaaqday iyadoo kala go'aas uu ku salaysan yahay qabyaalad uu ku salaysan yahay qabiil ku salaysan yahay marka maamul goboleedyadii baa sii go'aya sii kala go'aya waxa xaqiiqa iyaduna waxa xaqiiqa oo jira faragelin shisheeye oo ay tahay inaynu qirano ogaano oo ay ka mid yihiin ay Ethiopia kow ka tahay yani Ethiopia anigu waxaan ka aaminsanahay inay tahay yani cadawga Soomaalida oo dhan ama Soomaalida ha noqoto magaca Soomaaliya la soo hadhay ama Somaliland ha noqoto ama meel kale ha noqoto inay tahay cadawga raqam 1 ay tahay waa number 2 baan oran karaa ama lambarka labaad cadawgooda labaad sababta cadawgooda koobaad Soomaalidu waxaan u aqaanaa qabyaalad runtii cadawgooda labaadna waxaan u aqaanaa Ethiopia marka cadawgooda saddexaad iyo afraad saasay muxuu ku sii soconay marka waxay ka mid tahay cadawgeeda ugu muhiimsan ee faragelinaya muxuu ahay Soomaalida ee kala jajabinaya يعني هير لجارسيي Soomaalida in la shiro iska daa gobollo iyo maamullo iska daayay inay Ethiopia ula kala shirto beel yani wallahi waa masaayib inay beel ula kala shirto waxaana loogu talagalay xaqiiqada jirta waxa loogu talagalay yani wala Ethiopia Somaliland muxuu ahay naxariis u haysa wala Puntland bay muxuu ahay naxariis u haysa ولا عانى اللي سيساعدنا أنا مسناي أنا وإثيوبيا مركا كسر دماتو حاجة كسر دماتو أنتي مجا صوماليا لا صهدي إني أوصو أوتيمادو حاجة صوماليا أنا أقول فكرة كم إني حاجة صوماليا أوتيمادو أو أي مكلفت هذا أي فرقلين كويسو فرقلين بكويسة ها يعني إما كأوتيمادو أو أي عنتو يدنا وحقيقة jirta taas
marka yani haweye ma aamsani anigu muxuu ahaay inay Ethiopia muxuu ahaay ay tahay walaalehen anigu waxaan u arkaa cadowgeena yani lambarka labaada kadib qabyaalada waxaan u arkaa ka doonaya muxuu ahaay inuu ina cuno waxaynu ognahay sooyaalka taariikheed ee soo jiray waxaynu ognahay in Ethiopia ay Soomaalida oo dhan cadow u ahay Soomaali ma kala taqaano inakum baa isu kala qaybinayna inaan isu kala qaybinayna inaan oo dhan ma hadaynu nahay reer Somaliland waxa weeye wallahi inaka wayna jeceshahay kuwan ay nacabtahay يعني حتى waa jariimad bay nagu tahay wallahi xagga Soomaaliland jariimad bay nagu tahay inagoo arkayna inay halkan ku leynayso dadkeeni Soomaalida kale ku leynayso gowracayso kufsanayso waxay doonto ka fulinayso inaynu yani ku tilmaamno walaalaheed على الأقل waxa weeye in xiriirka yani runtii cadaadis la sameeyo oo aanu ahayn tatbiic iyo tabciya siyaasadda tabciga ah ay Soomaalida oo dhan ku daba faylaan aad baan uga xumahay Soomaaliya oo dhan wala cid baan kala soocay wala Somaliland wala Soomaaliya wala cid kale waxa weeye siyaasad tabciyada oo dabagala oo raacitaana ay muxuu ahaay wala daba fadhiya wallo kala muxuu ahaay dheereynaya waxa weeye kaanno waxa weeye waxay noqotay al munqid badbaadiye يا أخي إثيوبيا لا شيء يدي بالليدتها أنا قصص الماركة وحوي ودولة ظالمة يعني أقليات باهيستها كويستها يعني مو هاي ضد بدن بيت ترى بدن بيت كذا كايستها وديكتاتورية وين وظالمة وين وحوي ديمقراطية ده سيجتان تقول حنوي يعني حقوق لقمة إلالية حقوق لقمة إلالية تنظيم العنصرية لقمة لقمة إلالية وح مو هاي يعني كتير هالك اسمه كتير مركا أنا ما قرنيه وحيابها كوكلفية سياسية كوكلفية إنه مركز تقتل مامو ولا قتل مامو وحوي وحيابها مو عددك اللي خلطي ونوصل لقندونا مو هاي إثيوبيا يقرمي هذي waxaan ka hadlayaa muxuu ahay qodobadan doonaya inaan ka hadlayo ay kamid tahay marka gumeysiga horta muxuu ahay saas ayuu ku bilaabmay Soomaaliduna muxuu ahay saas ayay soo martay saas ayay muxuu ahay kala taagan tahay waxay maraysaa imika 2016 waxaanay u kala qaybsan yihiin qaybahaasi kala soo waxyaabaha xaqaayiq aan ka hadlano ee jira waxa weeye waxyaabaha qaar ba ayaa ah in aynan iska indhatir saasay u kala qaybsan yihiin qaabkaasi Soomaalidu kala qaybsan yihiin waxay u kala qaybsan yihiin Somaliland oo leh waan go'ay 1991 baan go'ay iyo intii aaminsanayd Soomaaliya inay mid tahay oo leh maydin go'in Soomaaliya waa mid maamul goboleed baatiin iyo hadalla cunsuriyada oo la isu marinayo muxuu ahay Facebooka oo aad u xun aan aaminsanahay inaanay dadka wax garadka aanay u badnayn hadallada qaar inay muxuu ahay isku tilmaamaan yani waxyaabaha qaar isku tilmaamaan oo la isku tuurturo labada dhinac ereyada xun waxa laga yaabaa inaad muxuu ahay garanaysaan marka halkaas la kala taagan yahay waxa la kala taagan yahay laba aragti oo yani aan xalka dhabta aan laga hadal dad waxay taagan waan u go'nay oo saasaan u go'nay saasaan u go'nay dad waxay taagan yihiin mayd naga go'nay wax naga mid naga naga mid waxna lama sameeyo waxala lama sameeyo lasmana qanciyo xal ma hana وما arka anigu xal in yani in la taagnaado la yiraahdo waxa weeye naga mid baatiin maamul goboleed baatiin isaaq laan baatiin mirqaan laan baatiin waxba yani صراحه hadallo yani muxuu ahaay marka dad doonaysid inay kula midoobaan yani maaha nooca hadallada noocaas oo kala in lagu hadlo خاصة أنا ما أمسني إنه يهين تذكر حاجات قال لك هو تذكر يعني براها بالشدة أديك سدا أو يعني سفهاء بدين تذكر هذا الله نوع عسكر والله مانجابيا يبدين يعني لبضة دي نعبة ضد مانجابيا يتشوجا أو ما هذا الله حكون إسوي دار سدا ما أنت ما هيك شقية أنا وناجا أنا كشقين وين لنا عكلنا